فرتون أنا كلا كعنو يا كبح فرتون عاو حلفة ديدو واي أصحابي لو صويعة أنا غلطت الكلام وأنا كلا كعنو يا حلفة دا لسكو ديارنو يا فرتون أي يس بوس salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal halkani waa janalka goobta media maantana waxaa idin hayaa muuqaal cusub fanaanada caanka ah ee Fartuuna balbalaarka oo maalmihii la soo dhaafay ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya yaa xalay halkaas waxaa lagu qabtay munaasabad si weyn loo soo agaasibay munaasabadaas ayaa waxay ka mid ahayd munaasabadii ugu quruxda badnaa ee loo dhigo dadka caanka ah ee markaasi safarka ama booqashada ku taga wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi Soomaalida dadka ugu caansan baraha bulshada sida TikTok-ga YouTube-ka iyo aaladaha kale ee la isticmaalo internet-ka ayaa munaasabadaas ka qayb galay Istarkuur Libaax oo ka mid ah dadka ugu caansan barta TikTok ayaa munaasabadaas soo abaabushay fanaanada caanka ah Fartuun balbalaarka ayaana ka dhex muuqatay goobta munaasabada loogu dhigay farxad weyn ayay dareemaysay waxaana halkaas ka socday damaashaad aad u weyn oo dadka badi ka soo qayb galay ee aad u faraxsanaayeen fanaanada caanka ee balbalaarka ayaa aad loogu libisay Soomaalida waxaa la yiri ma falxuma laakiin labis kaliya ayaa ka maqan taasna waxa ay cadeen u tahay kadib markii xalal la arkay Fartuun balbalaarka oo sidii gabdhaha Hindiga oo kale u qurux badan boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa munaasabad qayb galay waxaa halkaas lagu tumayay si qurux badan koobka ciyaar waali ahna waa lagu soo bandhigay badi dadka munaasabad qayb galay ayaa wajiyadooda waxaa laga dheehan karay daawadayaal farxad aad u weyn arintaasina waxa ay keentay kadib munaasabada lagu casuumay fanaanada caanka balbalaarka oo muddo ku dhow bil ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya fanaaniin badan ayaa aad u muuqato inay kaga caroon karaan maadaama soo dhaweyntaas mid la mid ah aan loo sameeynin fanaanka caanka ee dalmareere ayaa ka mid ah dadka hadda Nairobi dhawaan gaaray balse lama uusan kulmin munaasabad iyo soo dhaweyn mid ah mid loo sameeyay fanaanada caanka ah ee Fartuun balbalaarka Fartuun balbalaarka ayaa hadda si weyn ugu raaxaysanaysa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxa ay sharaxaad dheeri ah ka bixinaysaa daawadayaal daawan doona habka ay u dhacday munaasabada markaasi lagu soo dhaweynayay fanaanada caanka ah ee Fartuun balbalaarka السلام عليكم يا تيك توك عاوة حفلة ديلا وحيانكي بعدي وحان جوغا سالونك حمد قري وبدأ كيتان قروح ذي إشاقي نيكي أركو إيمالينا كاتل ميا مسكرين وإسلاها ما فهمتين وقفت كلي حمد قري سالون كذا ما أنت اللي بوكلي كعيي وأجد قروح ذا ولي كيغا مخوان نعيمة تاكي وحبيبتوك سلامة مع نيتشركا سالون كان ما فهمتين وحان ليا سودوين قروح بدن قبل فرفورا عطوتي نواكي وهي أكتي هاي أبا إثيوبيان نواكي ما فهمتين وسالون حمد قري قبلها أقولي صاحبتها استركل لي واحد قرب كيغا تاغنتها مروة هاي حمد قري انت كلهم قروح لي إيشان إيجايga fiiriyahay caawada aan leeyahay saaxiibta istar kulli waxna waa taa garabkayga taagan tahay I love you xabiibto ku jeclahay saacadii la soo dhaafay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya aad ayaa looga hadalhayaa munaasabada weyn ee loo dhigay fanaanada caanka ah ee Fartuun balbalaarka waa cajiib fanaanada Fartuun balbalaarka oo uu soo caanbixiyay in markaasi youtuberka caanka ah ee Xasan Toob ayaa hadda hawada maraysa xataa isaga ayay dhaaftay waxaana la sheegayaa in markaasi dad badan oo taageero dhinac badan ay helayso xogta uu helay ee janalka goobta media ayaa sheegaya in munaasabadan uu aad kaga carooday seegeeda Cismaan Diamond oo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya isla markaana uu sheegay in sidaas cirka loo galiyaa uu aad uga xun yahay sababta ayaa markaas lagu sheegay inuu ka masiirayo rag badan oo aan ka ah baraha TikTok iyo aaladaha kale ee bulshada ee munaasabadaas ku sugnaa haddaba dadka ayaa isweydiinaya in sababaha keeni kara in Cismaan Diamond uu ka caroodo munaasabad weyn iyo sida loo qiimeeyay xaaskiisa Fartuun balbalaarka haddaba dhankaaga daawade sidee u aragtaa munaasabada loo dhigay fanaanada caanka ah ee Fartuun balbalaarka oo hadda ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya maanta Fartuun ana kala kicinoya kabax Fartuun caaw xalfadeedu waaye asxaabi loo soo yaca
annaga laftirkana waana la kala kicinoyaa xalfadaa la isku diyaarinoyaa fartuunay yes boss salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal halkani waa janalka goobta meediya maantana waxaa idin hayaa muuqaal cusub fanaanada caanka ah ee fartuuna balbalaarka oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya yaa xalay halkaas waxaa lagu qabtay munaasabad si weyn loo soo agaasimay munaasabadaas ayaa waxay ka mid ahayd munaasabadii ugu quruxda badnaa ee loo dhigo dadka caanka ah ee markaasi safarka ama booqashada ku taga wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi Soomaalida dadka ugu caansan baraha bulshada sida TikTok-ga YouTube-ka iyo aaladaha kale ee la isticmaalo internet-ka ayaa munaasabadaas ka qayb galay Istarkuur Libaax oo ka mid ah dadka ugu caansan barta TikTok ayaa munaasabadaas soo abaabushay fanaanada caanka ah Fartuun Balbalaarka ayaana ka dhex muuqatay goobta munaasabada loogu dhigay farxad weyn ayay dareemaysay waxaana halkaas ka socday damaashaad aad u weyn oo dadka badi ka soo qayb galay ee aad u faraxsanaayeen fanaanada caanka ee Balbalaarka ayaa aad loogu libisay Soomaalida waxaa la yiri ma falxuma laakiin labis kaliya ayaa ka maqan taasna waxa ay cadeen u tahay kadib markii xalal la arkay Fartuun Balbalaarka oo sidii gabdhaha Hindiga oo kale u qurux badan boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa munaasabad qayb galay waxaa halkaas lagu tumayay heeso qurux badan koobka ciyaar waali ahna waa lagu soo bandhigay badi dadka munaasabad qayb galay ayaa wajiyadooda waxaa laga dheehan karay daawadayaal farxad aad u weyn arrintaasina waxa ay keentay kadib munaasabada lagu casuumay fanaanada caanka Balbalaarka oo muddo ku dhow bil ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya fanaaniin badan ayaa aad u muuqato inay kaga caroon karaan maadaama soo dhaweyntaas mid la mid ah aan loo sameynin fanaanka caanka ee dalmareere ayaa ka mid ah dadka hadda Nairobi dhawaan gaaray balse lama uusan kulmin munaasabad iyo soo dhaweyn mid ah mid loo sameeyay fanaanada caanka ah ee Fartuun Balbalaarka Fartuun Balbalaarka ayaa hadda si weyn ugu raaxaysanaysa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxa ay sharaxaad dheeri ah ka bixinaysaa daawadayaal aan daawan doonaa habka ay u dhacday munaasabada markaasi lagu soo dhaweynayay fanaanada caanka ah ee Fartuun Balbalaarka السلام عليكم يا تيك توك عاوة حفلة ديلا وحيركي بعدي وحن جوغا سالونك حمد قري وبدي كيتان قروح ذي الشقي نكي أركو إيمالينا كاتل ميا مسكرين وإسلام ما فهمتين وقفت كلي حمد قري سالون كذا ما أنت اللي بكلك عيي وأجد قروح ذا ولي جا مخوان نعيمة تاكي وحبيبتك سلامة مع ناتشركا سالون كان ما فهمتين وحن ليه سودوين قروح بدن قبل فرفورا عطوت نواكي وهي أكتي أجت هاي أبا إثيوبيا نواكي ما فهمتين وسالون حمد قري قبلها أقولي صاحبتها استركل لي واحد قرب كيكة تاجنتها مرة هاي حمد قري أنت كلهم قروح لي إيش الحقيقة فيها يا عوض أنا اللي هو صاحبتها استركل لي واحد نواكي قرب كيكة تاجنتها أي لا في وحبيبتك وشغلها saacadii la soo dhaafay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya aad ayaa looga hadalhayaa munaasabada weyn ee loo dhigay fanaanada caanka ah ee Fartuun Balbalaarka waa cajiib fanaanada Fartuun Balbalaarka oo uu soo caanbixiyay in markaasi YouTuber-ka caanka ah ee Xasan Toob ayaa hadda hawada maraysa xataa isaga ayay dhaaftay waxaana la sheegayaa in markaasi dad badan oo taageero dhinac badan ay helayso xogta uu helay ee janalka goobta media ayaa sheegaya in munaasabadan uu aad kaga carooday seegeeda Cismaan Diamond oo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya isla markaana uu sheegay in sidaas cirka loo geliyaa uu aad uga xun yahay sababta ayaa markaas lagu sheegay inuu ka masiirayo rag badan oo aan ka ah baraha TikTok iyo aaladaha kale ee bulshada ee munaasabadaas ku sugnaa haddaba dadka ayaa isweydiinaya in sababaha keeni kara in Cismaan Diamond uu ka caroodo munaasabad weyn iyo sida loo qiimeeyay xaaskiisa Fartuun Balbalaarka haddaba dhankaaga daawade sidee u aragtaa munaasabada loo dhigay fanaanada caanka ah ee Fartuun Balbalaarka oo hadda ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya